tani wixii ka dambeeyay markii dawladda Sacuudigu ay ku dhawaaqday in ajaanibta sharciga aan haysan ee dalkeeda isaga baxaan waxa sii kordhayay tirada dadka Soomaaliyeed ee dalka Sacuudiga laga soo tarxiilo kuwaasi oo maalin waliba ka soo daga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dadkaasi qaarkood waxay garoonka ka soo dagaan iyagoo aan waxba haysan garanayn halka ay abaaraan halka kuwa kale oo ku wajahnaana gobolada dalka aanay haysan sahaydii ay halkaasi ku gaari lahaayeen iyadoo taa laga duulayo ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde laga bilaabay in laga taago teendooyin loogu talagalay dadka tarxiilka ah ee taransadka ku ah garoonka in ay dagaan waxaana furay marwada madaxweynaha dalka Marwo Sahro Cumar Xasan dad jaal intaas isaga jiray dhibkiisa waa garanaynaa maxaan ku sheegaa markii dadkii meel ay ku nastaan hadayeen haysan meel ay dadkooda ku sugaan hadayeen haysan meel laga qaado hadayeen haysan dib baan u aragnay runtii maaragtay howlahan maxaan ku sheegaa waa la soo raagnay laakiin alxamdulillah haddaan maaragtay insha Allah maaragtay aan howlihii la guda galay hay'adan maaragtay mahadi ha ka gaartay IOM ka ay naga garab naga siisay iyo gacan naga siisay iyo howlwadeenadoodaba waxaan maaragtay insha Allah maaragtay aan hadda aan maaragtay aan teendadii aan dhisaynaa oo aan hadda hawsheedii ay wiilasha galayaan annaguna maaragtay waa furnay marwada madaxweynaha ayaa sidoo kale lacago ay ugu tala gashay guddoonsiisay dhalinyaro la soo tarxiilay shalay mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii ay la soo kulmeen waxaan dhibaato badan dadka Soomaaliyeed way qabaan waxaan qurbaha ku nool waraadkeedii anaga lafteena naga muuqdaa baan malaynayaa waxa weeyaan wixii ay dhahayo baarkeen ama aan la kulanay markii aan wax idinka sheego waxa weeyaan dad aad u tabaalaysan Soomaaliya baan soo aragnay waadi aad u dhibaataysan dad waxaan soo aragnay wadamada siiba carabta khaas maana dhaafin waxaan ku aragnay dad aad u tabaalaysan oo xidhxidhan oo xukunay inta garoonka aynu joognay ayay soo caga dhigatay diyaarad waday boqolaal dad Soomaaliyeed oo laga soo tarxiilo wadanka Sacuudiga dadkaasi oo ay diif ka muuqatay iyagoo u badnaa caruur haween iyo dhalinyaro gacmo maraa xitaa dhar dhameystiran ma aysan wadan waxaana halkaasi marwada madaxweynaha Sahro Cumar Xasan ay ugu qaybisay raashin loogu talagalay iyadoo baaq u dirtay ummadda Soomaaliyeed culimada Soomaaliyeed wax garadka Soomaaliyeed aqoonyahanada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay kor dadka isma dheera waxa daadsan ama dayacan waa dadkeenii aan abaarihii iyo dhibaatadii iyo markay dib gaaro dadka waa loo gurman jiray waxaan leeyahay waa in loo gurmadaa dadkan oo loo gurmadaa muslimnimada loogu gurmadaa aadanimada loogu gurmadaa dadka maanta tarxiilka ay magaalada Muqdisho soo gaaray waxa ku jiray dad xanuunsanaa kuwa xabsiga lagu soo jirdilay dadka Soomaaliyeed ee waxaysta ayaana looga fadhiyaa in ay taakulayaan dadkani aadka u dhibaataysan ee laga soo tarxiilayo wadanka Sacuudiga kuwaasi oo sida xawliga ah ugu soo qulqulaya magaalada Muqdisho